soo dhawaada asxaabteyda dhammaantiinba. Waxaan rajeynayaa inaad kulligiin caafimaad qabtaan meel kasta aad joogtaan. Waxaan idin leeyahay maalin wanaagsan, habeen wanaagsan, hadba midii ay ku tahay. Maanta waa 1 Julaay ama 1 Luulyo, maalinta xornimada koonfurta Soomaaliya ay qaadatay iyo midowgii gobolada waqooyi iyo koonfur. gobolada waqooyi waxay xornimada qaateen sanadkii 1960 bishii Juun 26 sidaasoo kale 4 beri ka bacdina waxaa xornimada qaatay goboladii koonfureed 1 Julaay, waxaana midoobay isla maalintaasi goboladii waqooyi iyo koonfur. maanta waxaan idin soo duubayaa vlog yar oon uga qayb galayo barnaamij arrintaas community Soomaalida ay ku qabanayaan magaalada Toronto. meelo kale ayaan sii marmarayaa. halkaana waxaan hadda ku sugaa baski, waa kana hadda ii soo istaaga baski, waa ii yimid baska iyo tareenada saan hore idinkugu sheegaba waxay leeyihiin raam iyo meelo aan ka kalaan dadka naafada ee haysta wheelchair-ka. halkan ayaan ka kaleeyaa baska. waxaan deganahay galbeedka magaalada Toronto. hadda waxaan soo gaaray iskuiska maaragtay Islington iyo Dixon. saa hore idinkugu sheegaba maanta ma aha keliya dabaaldegu Soomaaliya, sidoo kale dalkan aan ku noolahay ee Canada-na waa maalintooda Canada Day. 1 Luulyo 1867 ayaa dalkan qarnimadiisa la sameeyay oo Canada waxay noqotay qaran ku dhisan federaal Canadian Confederation. maalintaas ayaana dalkan isna laga xusaa oo loo yaqaana Canada Day. meesha dabaqyadaas dhinacooda kasoo horjeedkeeda ayay ka dhacaysaa xafladda ama dabaaldegga 1 Luulyo ee maalinta Canada iyo Soomaaliya.
16 Juun waxaa xornimada qaatay gobollada waqooyi sidoo kale 1 Luulyana 1 Juulaay waxaa qaatay gobolladii koonfureed ee Soomaaliya waxaana isla maalintaasna dhacay midoogii labadii gobol ee waqooyi iyo koonfur. maadaama maanta kuleyl badan oo jira waxa yimaaday yara jooga laakiin xaalada markay qabowda baashaan u boodeenay xurriyadda ay weyneeyaan ururka Today aad ayay u mahadsan yihiin. waxaan rabaa dad waaweyn ayaa nala jooga siyaasiyiin ha noqdaano dad arrimaha bulshada u ololeeya sidoo kale gabdho carruur iyo dhalinyaro daayar ayaa nala jooga dhammaantood way mahadsan yihiin kasoo qaybgalkooda. waxaan rabaa in aan ku bilaabano wax walba waxa ugu wanaagsan ee barnaamij lagu bilaabo amaba wax walba in lagu bilaabayo bilaabatay 26 Juun oo markaasi ururka Today ay calanka ka saareen halka looga taliyo magaalada Toronto ee City Hall iyadoo maantana 1 bisha July ama Luulyo aan u dabaaldegayno munaasabad kale. mar kale hambalyo dhammaantiin Soomaaliya ha noolaato. xafladan sanad walbaba soo qaban qaabiyo oo mudan in lagu amaano waxay sidoo kale qabtaan barnaamijyo kale oo kala duwan haddii ay noqon lahayd hidaha iyo dhaqanka tababarka carruurta dhanka kubadda cagta tartamo kubadda kolayga iyo kubadda cagta ah oo Somali Week ciyaaraha aadka mahadsantihiin. waxaan rabaa maadaama aan u dabaaldegayno 1 Luulyo munaasabadda iyo xurriyadda iyo xilligii laga xorreeyay gumaysigu waxaan rabnaa inaan dhammaanteen u istaagno heesta calanka oo qiimeeni qadarin naga mudan oo ahmida halkan aan dhammaanteen maanta u soo wada istaagnay aan u istaagno heesta calanka Soomaaliya idinkoo mahadsan.
ahaada maadaama maanta ay tahay maalinta xorriyadda Soomaaliya iyo sidoo kale maalinta Canada oo ah 1 July waxaan rabaa Canadian aan nahay in sidoo kale heesta calanka ee Canada aynu ku xijinno oo Canada Soomaaliya ha noolaato aad ayaad u mahadsantihiin mar kale ka soo qaybgalkiina wadinkiiga mahadcelinayna ee aan ka tirsanahay sida aad la socotaan ururka Today markii ugu horeysay oo calan halkan ka saara ma aha dhowrkii sano ee ugu dambeeyay wuxuu ka shaqeynayay horumarinta iyo dardargelinta arrimaha Soomaalida ee degan wadankan Canada horaantii bishan ay waxay u kicitimeen teamka ururka Today magaalada Muqdisho si ay ugu soo sameeyaan qorituurka ciyaaraha xagaaga ee sanadkan 24 bisha July ilaa iyo 2 Agoosto ka furmi doono garoonka weyn ee Centennial Park waxaan rabnaa inaan dhammaantiin idin mahadcelino waxaan kaloo rabaa inaan idin la socodsiiyo halkaas inay joogaan gabdho yar oo lagu diyaariyay face paintingka si caruurta loogu mariyo calimada Canada iyo Soomaaliya intaba waa diyaar dhanka midigta waxaa diyaar noogu ah teamka Farxiyo Calisow iyo raashinkoodii dhankaas kale cookies ayaa ayagana halkaas diyaar noogu ah farikama qodna faanoole barnaamijkeena hadduu bilowday waxaan rabaa si qaas ah inaan ugu mahadceliyo ururka Today oo saaka 8 subaxnimo halkan taagnaa si ay u suurageliyaan munaasabadan quruxda badan dhammaanteen aan ka wada shaqeyno nadaafadda aan ka wada shaqeyno isku duubnida caruurtana aan wada ilaalino haddii Ilaahay raado waxaan rabaa markan inaan kooxda Mama Fangtoy Hidadhowr ee ka tirsan magaalada Hamilton sanad kastana noo yimaada si ay halkan noogu muujiyaan hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed iyo heesii lagu yaqaanay dhaantada inaan ayagana ku wareejiyo Mama Fangtoy iyo teamkeeda soo dhawaada
مدي سيد ما يعيداي مرت ومرون هيغا مكا aadayo maasiin waxay ahaayeen kooxda Mama Fantoy hidadowr oo ka tirsan magaalada Hamilton aan u saabino kooxda hidadowr xafladu waa xaflad xorriyad dabaaldeg haddana waxaad moodaa si uun inay caajis u tahay aan u saabino kooxda hidadowr waad maasantiin waxaa jirta siyaasiyiin ayaa nala joogsan hore u sheegay oo haddee qaarkood hadda xil haya qaarkood horey xil u hayay waxaan rabaa inaan u mahadcelino dhanka wariyaasha oo horey aan u xusay Cali Bakri Sheekh bin Sheekh ama Bakri Media iyo Bakri Yara Manitoba iyaduna sidaas si la mid ah loogu aqoonsan lahaa toddobaadka Soomaalida aan u yeero aan u sacbino xildhibaan hore ee heer gobol ee xaafadda York South Western Faisal Hassan صعب مجرمية thank you السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى dadka qaarkii magacayga inaydan garanayn waxa la Faisal Hassan maanta waxaynu u dabaaldegaynaa 159 sano iyo 66 sano Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya waxay jirtaa 66 sano Canada waxay jirtaa 159 sano maanta oo ah runtii maalin weyn marka hore waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ururka Today
oo runtii xafladan qiimaha badan leh soo qaban qaabiyey sanad walbana soo qaban qaabiyey sanado badanna calanka Soomaaliya ka saaray City Hall waanu mahad celinaynaa waanu ku dhiirigelinaynaa halkaas inay ka sii wadaan kobcinta dhalinyarada iyo magaranaysaa dhaqanka Soomaaliyeed caawa fiidkan oo aynu u dabaaldegayno midnimada gobonimada sharafta ummadda Soomaaliyeed waxaanu leenahay Soomaaliya ha israacdo Soomaaliya ha noolaato Happy Canada Day ciao Somalia cool. Happy Somali Day. Happy Canada Day.
yaalo kama maalme malqura aan ku heeroha aragina yaalo الله والله يا بابا والله ما أنت نسان كليل يجوا شيئا يعني ما ركتي هذا وحب الله الطبيل ناسي بس التجي حبلت عيده ولي صعد عبدي ناس كأذي